barnaamijka Afurkalkaal oo ay asaaseen dhalinyaro wax ku bartay dalka Hindiya oo haatan kala jooga dalka iyo dabadiisa ayaa deeq raashin u qaybiyay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Burco. Deeqdani raashinka ayaa la gaarsiiyay 60 qoys oo loogu talagalay inay ku afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan. waana sanadkii saddexaad ee deeqdani uu bixiyay barnaamijka Afurkalkaal. ugu horeynna deeqdan ay bixiyeen waxa faahfaahin ka bixiyay Ibrahim Faarax Macaani oo wakiil ka ahaa bixinta deeqdani. maanta ay tahay ka bisha Ramadaan barnaamijka Afurkalkaal oo ah barnaamij ay ku midoobeen ardaydii ka baxday jaamacadaha Hindiya oo isugu jirta waayeel iyo dhalinyaro. sanad kasta waxay afuriyaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan gobolada Soomaaliland. magaaladan Burco ee xarunta gobolka Togdheer barnaamijkaas waxa laga fuliyay 3 sanadood isku xiga oo Ramadaan ah. saddexdaas sanaba waxa laga fuliyay aagan aan hadda joogno magaalada Burco. dhalinyaradaasi iyaga iskooda isu xilqaamay, iyaga jeebkooda isu gooyay, iyaga iskaashaday, iyaga dadka muxsiniinta la kaashaday, isla markaasina soo gaarsiiyay dadkooda jilicsan. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. waxaanu ka baryaynaa annagoo dhalinyarada wakiil ka ah in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu jannada ugu bedelo, in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu miisaankooda xasanaadka u saaro, dadkooda jilicsan ee ay u soo gurmadeen ee sanad kastana waliba ay u soo gurmadaan, waliba khayriyaadka kalena way ka qayb qaataan. iyaga iyo cid kasta oo kala qayb qaadatayba annagoo afkooda ku hadlayna waanu u mahadnaqaynaa. maanta raashinkan kala duwan oo isugu jira bariiskii, daqiiqdii, timirtii, saliiddii, sonkortii waa 60 qoys baa loogu talagalay. 60 qoys ayaa ka faa'iideystay. insha allahu sanadaha dambana way ka badan doonaan. khayr baynu rajaynaynaa. dhalinyarada iyo dadka waayeelka isku jiray Afurkalkaalna waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idinku guuleeyo dadkiina jilicsan ee aad u soo gurmanaysaan. maanta waxa weeyaan waa maalin Ramadaana, waa maalin soona. bisha soona waxa weeyaan 11 ka bishii Ramadaan waxaanu halkan lagu qaybinayaa waa 60 qoys oo ay maxay ahaaytay ku soo caawiyeen dadka masaakiinta ah ee magaalada Burco qaybaheeda kala duwan. dhalinyarada jaamaciyiinta aqoon-yahanka ah ee reer Hindiya ay maxay ahaaytay barnaamijka la baxay Afurkalkaal. waana sanadkii saddexaad ee ay ugu deeqaan dadka reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer, gaar ahaan degmada Burco, in ay ka caawiyaan afurada ay ka bixiyaan. afuradaas oo isugu jirta 4 nooc oo le bariiskii, sonkortii, daqiiqdii iyo timirtii iyo waliba saliiddii. waxa weeyaan dadkaasi waa dad inta badan waa dadka dhimirka haysta ee dadkooda xanuunsanayo iyo dadka agoomaha ah iyo dadka maxay ahaaytay kale ee naafada ah iyo dadka danyarta ah ayay isugu badan yihiin. dadka xanuunada gaarka ah la nool iyaguna ayaa ka mid ah. waxaanu leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhalinyarada aqoon-yahanka ee reer Hindiya ee jaamiciinta ee aqoon-yahanka ee barnaamijka ugu deeqayay sanadkii saddexaad. Ilaahay waxaanu subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu dhammaanteen baynu ducaynayna miisaanka xasanaadka u saaro. ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala inuu halka ay ka soo saareen ay nooga soo quudheen innagana tirsiimana u garanaynin, qof ahaanna u garanaynin, qabiil ahaanna u garanaynin, sida midaysan ee ay inoogu soo dhiibeen. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu jannada ugu mideeyo. National Electronics waa hoyga agabka elektrooniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda.